Maalin qorax kulul oo xagaaga ah, reer miyiga deggan dooxada cagaare ayaa nolol deggan ku lahaa. Xoolo badan baa daaqayay, carruuruna waxay ku ciyaarayeen hareeraha aqalka. Laakiin dadka deegaanka waxaa had iyo jeer ka dhex guuxayay hal magac, dhegdheer, haweenay dheer, dhego waaweyn leh, oo dadka hilibkooda cunta. Waxaa la sheegay in dhegaha dhegdheer ay dhulka ku dhufan karto si ay u maqasho cod kasta oo fog. Dad badan ayaa la waayay habeenno mugdi ah. Hooyo Khadra waxay lahayd 4 carruur ah, 2 wiil iyo 2 gabdhood. Maalin maalmaha ka mid ah ayay carruurtu ku adkaysteen in ay keynta miro uga soo gurtaan. Hooyadood way ka diiday, balse ugu dambayn way fasaxday iyadoo ku celcelinaysa: haddii aad keynta tagtaan, iska ilaaliya buuqa, oo yaan idinku arkin dhegdheer. Carruurtu si farxad leh bay u baxeen, waxayna qaateen weelal ay ku ururiyaan miro. Markii hore waxay ku qoslayeen keynta, heesna way ku luuqeeyeen. Laakiin wiilka yar wuxuu dareemay cabsi. Wuxuu yidhi: walaalayaal, hooyo waa nagu waanisay, maxaan ugu dhegaysan weynay? Markii ay gudaha keynta u sii socdeen, waxay maqleen cod cabsi leh oo ka imaanaya meel dheer. Dhool dhool, dhiig baan doonayaa. Carruurtu way is eegteen, weelashoodana way daadiyeen. Dhegdheer ayaa dhagaha dhulka dhigtay, codkoodana si cad u maqashay. Waxay u soo dhaqaaqday dhankooda iyadoo afkeeda candhuuf ka daayo. Carruurtu way carareen, waxayna mararka qaar ka dhunteen geedo dhaadheer, laakiin dhegdheer waxay ahayd mid dhaqsaha badan. Markii ay daaleen, waxay gaareen aqal yar oo geed weyn agtiisa ku yaal. Halkaas waxaa degganaa oday caqli badan oo lagu naanayso Adeer Guuleed. Carruurtu way ku qayliyeen: adeer, dhegdheer baa nagu daba jirta. Adeer Guuleed ayaa qosol yar ku yidhi: ha baqanina carruur. Dhegdheer dad badan way dishay, laakiin caqli iyo geesinimo ayaa lagu jebin karaa. Wuxuu carruurta ku amray inay ururiyaan laamo qalalan iyo dhagaxyo. Wuxuu sameeyey dab weyn oo qiiq badan ka baxayo. Markii dhegdheer soo dhowaatay, waxay u malaysay in dad badan halkaas ku nool yihiin, sababtoo ah dabka iyo codadka carruurta uu odaygu ku qanciyey inay qayliyaan sidii dad badan. Dhegdheer waxay isku dayday inay soo gasho, laakiin qiiqii iyo ololkii dabka ayaa dhagahaheeda waaweyn qabsaday oo gubay. Waxay qaylo ka soo yeertay oo ay dib ugu boodeen. Laakiin sheekadu halkan kuma dhammaan. Dhegdheer ma aysan ka cararin gebi ahaan. Waxay dhagax weyn ka qaaday geed agtiisa, waxayna isku dayday inay ku tuurto carruurta. Carruurtu way qayliyeen, laakiin odaygu wuxuu ku yidhi: hadda waa wakhtigii aad geesi noqon lahaydeen. Wiilkii weynaa wuxuu qaaday dhagax yar oo dabka ku kululaaday, wuxuuna ku dhuftay wejigeeda. Dhegdheer ayaa orod ku dhacday, carruurtuna waxay ku xigeen dhagaxyo kale. Dhegdheer ayaa ugu dambayn si dhaawac ah uga carartay keynta, iyadoo ku dhaaranaysa inay mar kale soo laaban doonto. Carruurtu waxay dib ugu laabteen gurigooda, hooyadoodna way ku faraxday inay badbaadeen. Dadkii deegaanka oo dhan waxay ku ammaaneen geesinimada carruurta iyo xikmadda Adeer Guuleed. Waxaa la yidhi ilaa maanta, marka dab weyn laga shido keynta dhexdeeda, dhegdheer ma soo dhowaato. Dulucda sheekadani waxayna baraysaa in cabsi kasta lagu jebin karo caqli iyo geesinimo. In carruurta xitaa ay hadiyeeyo noqon karaan haddii isku duubnaadaan. In sharka ugu weyni uu mararka qaar isagu isgubo.